Sheekada filimkan oo ah qiso dhab ah waxay ku dhacday maxbuus lagu magacaabo Frank sanadkii 1960kii. ka hor inta aan gudagelin barnaamijka like saar page-keena oo share garee fiidiyowga sidoo kale hala noqo saaxiib dhow si aad u hesho macluumaad fara badan. Horaantii 1960kii Frank oo ahaa maxbuus aad u caqli badan kaas oo ka soo baxsaday xabsiyo dhowr ah ayaa loo wareejiyay xabsiga ugu ilaalada adag ee Alcatraz kaas oo ku dhex yaala jasiirad goodoon ah. isla markiiba markii la keenay jeelka waxaa laga saaray dharka oo dhan waxaana la geeyay qolkiisa jeelka. Maalmihiisii ugu horreeyay Frank ee jeelka waxa uu baran doonaa dhowr maxbuus. Mid ka mid ah waxa uu baranayaa maalintiisa ugu horreysay hoolka cuntada kaas oo lagu magacaabo Leitmoss oo ah nin aad u jecel cunnada saaxiibna la ah oo quudiya jiir ama doolli. sidoo kale Frank maalintiisii ugu horreysay wuxuu arkayaa nin sameynaya xarakaad la yaab leh oo isaga soo fiirinaya laakiin ma uusan sii dananin. Kadib markuu dhamaysto cunadiisa wuxuu ku laabto qolkiisa jeelka. kadib taliyaha xabsiga ayaa wacay Frank waxaana looga yeedhay xafiiska taliyaha xabsiga kaas oo si adag ugu sheegay in Alcatraz uu yahay mid gaar ah oo ka duwan xabsiyadii uu ka baxsaday dhammaan iyo in uusan jirin maxbuus si guul leh uga baxsaday Alcatraz sidaa darteed uu iska ilaawo inuu baxsado mar kale ama aanu isku dayinba gebi ahaan. wuxuuna taliyuhu u sheegay dhowr waxyaabood oo kale oo ku saabsan qaanuunka jeelka sida inuu qubaysanayo isbuucii 2 mar in bishii lasoo booqan karo 2 mar waxaana uu weydiiyey Frank dadka ay macquul tahay inay soo booqan karaan laakiin Frank ayaa u sheegay taliyaha inuusan lahayn cid soo booqata isaga. taliyaha oo la yaabay arrinka ayaa ku yidhi Frank ku laabo qolkaaga xabsiga. kadibna waxa uu eegay faylasha Frank kaas oo ku qoran inuu ka soo baxsaday jeelal aad u fara badan uuna yahay nin aad u caqli fara badan. intaas kadib Frank oo jooga hoolka qubeyska isagoo Leitmoss weydiinayay jiirkii ayaa ninkii sameynaya xarakaadka la yaabka leh ee lagu magacaabo Wolf ayaa u imaanaya Frank laakiin Frank ayaa la dagaalamaya mid walbana waxa lagu celinaya qolkiisii jeelka. kadib Frank ayaa qolka bugaagta kula kulmaya maxbuus lagu magacaabo English kaas oo ah nin madow ah oo ku xukuman xabsi daa'in sababtoo ah waxa uu dilay 2 nin oo caddaan ah isagoo naftiisa difaacaya. kadib Frank oo qaybinaya bugaagta ayaa sidoo kale waxa uu baranaya maalinkaas nin farshaxanaysta ah oo lagu magacaabo Robert kaas oo jecel sawirrada iyo farshaxanka kaas oo ugu digaya Frank ninkii ay hoolka qubeyska isku dagaaleen una sheegay inuu yahay nin aad u halis badan. kadib Frank ayaa u tagay English mar labaad isagoo weydiinaya in qof hore isugu dayay inuu ka baxsado jeelka laakiin waxa uu sheegay inay macquul ahayn in laga baxsado jeelkan wuxuuna uga digayaa haddii mar dambe ay isdagaalaan Wolf in la geyn doono qolka cadaabta oo ah qol aad uga duwan qolalka kale ee jeelka. kadib Frank oo hoolka la lugeynaya Leitmoss ayaa waxa mindi ku soo weeraray Wolf oo ah ninkii ay isku dagaaleen hoolka qubeyska mar hore. kadib weerarka mindida ah labadooda waxa loo diray godka cadaabta oo ah qol aad uga duwan jeelalka kale ee xabsiga. laakiin muddo kadib Frank ayaa laga saaray qolka cadaabta halka Wolf lagu sii hayo qolka cadaabta in muddo ah. Frank kadib intaas kadib taliyaha xabsiga oo ku jira kormeer uu ku dhex marayo ama ku dhex wareegayo xabsiga waxa uu ogaaday in Robert uu sawiray kartoon muujinaya taliyaha oo aad u foolxun. kadib markii uu arkay sawir gacmeedka isaga muujinaya taliyuhu waxa uu amar ku bixinaya in dhammaanba mudnaanta lagu siiyey inuu wax sawiro laga joojiyo Robert. intaas kadib Robert waa uu niyad jabaya waayo wax sawiraadu waxay ahayd waxa kaliya ay ku samirsiinaya inuu sii joogo jeelka. isaga oo niyad jabsan oo ka shaqeynaya warshadda xabsiga ayuu farta isaga jaraya minshaar waxaana meesha maraya Frank waxa uu ku soo ordayay saaxiibkii laakiin ilaalada ama waardiyaasha jeelka ayaa u diidaya kadibna waxa loo qaadayaa isbitaalka. intaas kadib mar kale hoolka cunnada ayuu Frank kula kulmayaa 2 tuug oo walaalo ah oo lagu kala magacaabo John iyo Clarence. labadan oo uu saaxiib ku lahaa xabsi hore oo ay ku wada jireen saddexdooda ayaa waxay la kulmeen maxbuus kale oo lagu magacaabo Charlie. Frank wuxuu u sheegayaa inuu hayo qorshe lagu baxsan karo iyo in qolalka jeelka shabagga hawada ee ku wareegsan derbiga uu daciif yahay oo la qodi karo taasoo soo dhaweysay fikradda Frank iyo saaxiibadii ee ka baxsiga xabsiga. dhowr bilood ee soo socda Frank iyo 2 tuug ee walaalaha ah iyo Charlie Potts waxay qodayeen shubka hareeraha iyagoo isticmaalaya malqacad sidoo kale si ay u hubiyaan in ilaaladu aanay ogaanin inta ay ku jiraan shaqada qoditaanka derbiga waxa ay sameeyeen
waraaqo ay u ekeysiyeen bini'aadam ama madax bini'aadam oo ay u sameeyeen weji oo ay ka sameeyeen karaatoon waxa ayna saareen sariirtooda si ilaaladu ay u aragto oo ay u moodo iyagii oo halka hurda kadib xilliga cunnada Frank iyo walaalaha tuugada ah ee Latmus oo jooga hoolka cunnada Latmus waxa uu saarayaa miiska ubax si loogu sharfo Robertski iska jaray minshaarta laakiin waardiyaha ayaa ka hortagaya taas oo ka diidaya kaasi oo dhanay halkani ma aha gurigiinii taas oo keentay in Latmus uu xanaaqo oo ka dhaco jooga wadna xanuun dartiis halkaas ayuu ku dhintay Wolf ayaa u imaanaya Frank waxa uu u sheegay inuu dilayo markii ay ka baxeen hoolka cunnada kadib Wolf wuxuu isku diyaarinayaa inuu mar kale mindi ku weeraro Frank laakiin English ayaa joojinaya oo ka hortagaya una sheegaya hadduu faraha ka qaadi waayo Frank in kooxdiisu ay dili doonto kadib taliyaha ayaa amar ku bixinaya in la baaro qolka Frank laakiin baarista kadib lagama helin wax aad u weyn si kastaba ha ahaatee taliyaha xabsiga ayaa amar ku bixiyay in Frank loo raro qol kale oo ku yaala xabsiga sida ugu dhaqsiyaha badan leh isla habeenkaas maxaabiistii waxa ay go'aansadeen inay baxsadaan Frank iyo walaalaha tuugada ah iyo Charlie waxay qorsheynayaan inay ku kulmaan marinka bullaacadaha iyo biyo mareenka oo ay baxsadaan laakiin Charlie waa uu ku guuldareystay inuu la kulmo iyaga sababtoo ah ma awoodo inuu qodo shubka hareeraha godka bullaacada oo waxa uu ku soo laabtay habeenka sariirtiisa isagoo murugaysan Frank iyo walaalaha tuugada waxay gaareen saqafka sare waxayna ka fogaadeen nalalka xabsiga kadib waxay ka soo gudbeen dhinacii dhismaha ilaalada ilaa deerka xabsiga ee fog waxa ayna fuuleen deerka siliga ee labaad waxayna u sii gudbeen dhanka xeebta jasiiradda saddexda nin ayaa sidaa kaga baxsaday jeelka Alcatraz subaxii xigay ayaa la ogaaday baxsashadii saddexda nin waxaana daba socday baadigoob aad u weyn intii lagu jiray baaritaanada iyo baadigoobka qaybo ka mid ah jaakada roobka iyo qaar ka mid ah alaabada gaarka ah ee ragga ayaa lagu arkay iyagoo sabaynaya xeebta San Francisco si kastaba ha ahaatee filimku waxa uu ku soo gabagaboobayaa in la waayay saddexdii nin meel ay jaan iyo cirib dhigeen taas oo keentay in la xidho jeelka Alcatraz wax ka yar hal sano kadib dhacdadaas waxayna saa ku noqdeen dadkii ugu horreeyay ee ka baxsaday jeelka Alcatraz waad ku mahadsantahay daawashadaada fadlan haddii aad jeceshahay daawashada filimaanta la soo gagaabiyay qisooyinkooda like saar page-ka Somali Brothers